السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام أصحابتا رمضان مبارك. آه، walaalkiin taqare gaming channel waxaan rabaa inaan maaragtay sharaxaad idinka siiyo Popg Mobile season 13 update-ka cusub waxyaabaha lagu soo kordhiyey hadday noqon lahayd maababka, hadday noqon lahayd setting-ka, hadday noqon lahayd qoryaha cusub lagu soo daray, hadday noqon lahayd xagga scope oo setting-ka asagana wax badan lagu soo kordhiyey. runtii update-kan cusub waxyaabo badan ayaa lagu soo kordhiyey insha allah. waxaan rabaa inaan idinkaga faa'iideeyo haddii ilaahay idmo. kusoo dhawaada walaalkiin taqare gaming channel. Just say the word. I can teach you. xataa maabka waxaa lagu soo kordhiyey maabka meermar. maabkan labada kale uma degsana. maabkan meermar waxaa lagu soo kordhiyey waxyaabaha casriga hadday noqon lahayd gawaarida goolda iyo maaragtay waxaa moodid maaragtay habaas ama ciidka ay socdo waxyaabo badan oo sharaxaad ah baa lagu soo kordhiyey. marka waxa ugu muhiimsan oo aad lagu soo kordhiyey waxa waaye in qori lagu soo kordhiyey. qorigaasna insha allah waa idinla wadaagi doonaa in settingka wax badan lagu soo kordhiyey. marka insha allah settingkan tegi doonaa haddii ilaahay idmo. marka halkan waxaa lagu soo kordhiyey waxyaabo badan intaan settingka u gudagelin. inaad asxaabtaada la cuni kartid. cusub lagu soo kordhiyey ujeedaan dalkan maaragtaan sidaan uga yahay
kiisa ka daawan kartaa adoo training ku jira. halkan ruliska ka isticmaali kartaa training halkaas waxaa lagu soo dhigayaa markaas marka waxaan geli doonaa qaybta settingka waxa lagu soo kordhiyey settingka controlska dan tagno isaga basicka waxa lagu soo kordhiyey isaga content feature markaas tap to switch inaad tiraahdo tap to use scope-ka dhinaca cusub lagu soo daray waxaad taabanaysaa markaad tagtid basicka tap to use scope marka taas ayada lagu soo kordhiyey controlska waxa lagu soo kordhiyey runtii siteka cusba aniga halkaas u yaala siteka cusba halkaas aniga halkaas u yaala marka waxa lagu soo kordhiyey copy inaad dhahan kartid inaad copy dhahan kartid oo classic fbb-gaaga settingkaaga ku dheli jirtay controlskaaga ku dheli jirtay inaa fbb-ga cusub adoon waxba edit garaysan usoo wareegsan kartid fbb-ga cusub aad samaysatayna inaad u wareeji
class FVB-ga adiga hore u isticmaali jirtay intaas ay lagu soo kordhiyay anigu kolay FVB-ga cusub waa edit gareystay saan aan u dheela akhyaarta marka sharafta badan intaas ayaa lagu soo kordhiyay waxyaabaha kale oo lagu soo kordhiyay iyadana way jirtaa settingka waxaa lagu soo kordhiyay iyadana scientific waxaa lagu soo kordhiyay scientific waxyaabaha lagu soo kordhiyay waxaa kamid ah in maaragtay loo sameeyo lagu soo kordhiyay uplift to cloud waxay tahay in maaragtay haddii gameka ka tirtirmo ama ka baxdid in maaragtay scientificaaga hore aad gareysan karto uu ku soo celinayo oo hadhow haddii aad maaragtay rabto inaad scientificii hore ku ahaa aad isticmaasho marka ciyaarta shorta badan waxaan rabaa inaan la wadaago qoriga cusub ee lagu soo kordhiyay qoriga cusub ee lagu soo kordhiyay isaga qoriga cusub ee lagu soo kordhiyay isaga waa kana qorigan waxaa la yihahdaa P90 wuxuu qaataa xabadaha AEG-ga ama uziga sida u taqaanaan buu qaataa bay isku xabada yihiin marka qorigan waxaa la yihahdaa P90 waa qoriga cusub hadda lagu soo daray waxyaaba badan baa runtii seasonka updatekiisa laga bedelay ujeedaan masha allah bal ku ciyaar tijaabi waxaa kaloo iyadana qoryaha lagu soo daray qorigan scope ma lahaan jirin isagana scope ayaa lasoo saaray sida ujeedaanba waxaa la yihahdaa 94 baa la yihahdaa waxaa isagana lasoo saaray scope akhyaaray waxyaabaha lagu soo kordhiyay intaasaa ugu muhiimsan runtii seasonkan waxyaaba badan baa lagu soo kordhiyay hadee iga maqan insha allah videoyadana dadba ayaa uga bogan doontaan waxyaabihii soo kordha hadda kale inta aan arkay ugu muhiimsanayd intaas ahayd dhammaanta akhyaartiin aad baan idin salaamayaa magaalaadana channelka subscribe share like intaba commentan aad hoos noogu reebtaan waxyaabaha maaragtay naga dhimana insha allah videoyin dambe baad kaga duwan doontaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalkiin daqare